muslimiintu wuxuu ugu bishaareeyay furashada Masar oo wuxuu dhahay إذا فتحتم مصرا فاستوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم ذما ورحما marka Masar furitiin ahalkeeda khayr u dardaarma فإن لهم ذما ورحما raximka culimadu waxay ku tilmaameen in Haajar oo ah Nabi Ismaaciil hooyadiis iyo Maariya oo ahayd Nabi Ibraahim calayhi salaam hooyadiis labadaba inay ahaayeen reer Masar. xilligii jaahiliga Camr ibn al-Caas wuxuu safar ganacsi ku tagay Masar. reer Masar xilligaas waxay ahaayeen Orthodoxiyiin waxaana gumaysan jiray Byzantiniyiintii Kaatooliga ahaa oo waxaa ka dhaxeeyay cadaawad iyo nacayb daran. markii la soo gaaray khilaafadii Cumar bin Khattab, Byzantiniyiintii Roma waxaa laga bursaday Shaam waxayna soo aadeen dhankaas iyo Masar. Camr ibn al-Caas oo horey u tagay Masar wuxuu isku dayay inuu dhowr jeer ku qanciyo Cumar bin Khattab inuu furto Masar, ugu dambeynna wuu ku guuleystay. markii hore Camr wuxuu la soo tagay ciidan dhan 4,000 oo keliya, kadibna wuxuu dalbaday gurmad waxaa loo soo diray ciidan dhan 12,000. Camr intuu dagaalkaas ku jiray waxa uu adkaa furashada caasimadda Byzantiniyiinta ee Iskandariya iyo dhufayskii Baabil. furashada dhufayska Baabil wuxuu qaatay 7 bilood, sidoo kale Iskandariyana waxay qaadatay 4 bilood. farxaddii iyo furashadii Masar kadib, Cumar bin Khattab wuxuu soo faray Camr bin al-Caas in caasimadda Islaamka laga bedelo Iskandariya. tashi iyo shawro kadib waxay isku waafaqeen in caasimadda muslimiinta laga dhigo Xusnu Baabil, dhufayskii Baabil, waxaana halkaas laga dhisay magaalada Fustaan oo laga dhigay caasimadda Islaamka. waxa ugu horeeyay ee laga dhisay caasimadda wuxuu ahaa masjidka jaamica ah oo lagu magacaabay Jaamicu Camr bin al-Caas. dhismihiisana waxaa ka qayb qaatay 80 saxaabi. masjidku wuxuu ahaa masjidka ugu horeeyay ee laga dhisay Masar iyo Afrika oo idil. 24 Ramadaan sanadii 21 Hijriga waxay ku aadeen dhismaha caasimadda Masar ee muslimiinta iyo sidoo kale dhismaha masjidka Camr bin al-Caas.